Last year, sanadkii hore, I graduated from university. Ayaan dhameeyay jaamacadda. I received waxaan ka qaatay a bachelor's shahaadada koowaad ee jaamacadda of science in nursing ee cilmiga kalkaalisinimada. And get hired for a job. Waxaan helay shaqo 3 months later. 3 bilood kadib. I worked at the local hospital now. Hadda waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka deegaanka. My role is hawshayda shaqeed waxa weeye to register inaan kaydiyo warbixinada xogaha any patients bukaan kasta who visit ee imaada the emergency ward qaybta gargaarka degdega ah. The best part of my job qaybta shaqadayda ugu fiican is that waxay tahay I get to be waxaan ahay the first point of contact qofka ugu horeeya ee lala xiriira when people markii dadka visit imaadaan the emergency qaybta degdega ah. I do my best waxaan aad ugu dadaalaa to keep patients calm sidii aan u dejin lahaa bukaanka until they see a doctor ilaa dhakhtarka ay ka arkaan. It's my dream waa riyadayda to someday in maalin un work inaan ka shaqeeyo the maternity ward qaybta hooyada iyo dhallaanka. I absolutely love waxaan aad u jeclahay working with infants inaan la shaqeeyo dhallaanka. I work long shifts now. Hadda xilliga aan shaqeeyo aad ayuu dheer yahay. So sidaa awgeed I don't have time ma helayo waqti to socialize waqti aan kula kulmo saaxiibaday familygaygi waqti aan kula qaato ma helayo as much as sidii aan u heli jiray I used to before xilligii hore saan ula kulmi jiray uma helayo hadda deertaan. Vocabulary erayo graduated waxaa loo jeedaa to successfully complete a course si guul inay kugu dhammaato koorso or education program ama barnaamij aqoon barnaamij waxbarasho and received a certificate oo aad ka qaadato shahaado a diploma or a degree ama shahaado sare ama degree. Bachelor's of Science in Nursing waxaa loo jeedaa a nursing degree program waa barnaamij shahaado ee nursing ah. Hired waxaa loo jeedaa to be given a job in shaqo lagu siiyo ama lagu qaato. Local hospital waxaa loo jeedaa a hospital that is within the immediate community waa isbitaal ku yaala deegaankiina. To register any patients waxaa loo jeedaa to officially record in aad kaydiso or enter the details of individuals qof kasta xogtiisa seeking adigoo raadinaya medical care or services adeegyo ama daweyn. Emergency ward waxaa la yidhaahdaa specialized section waa qayb gaar ah in hospital ee isbitaalka ku taala dedicated to taasoo loogu qabto immediate medical care daweyn hoosaad oo qofka loogu qabto ee gaar ah ama gargaarka degdega ah. First point of contact waxaa la yidhaahdaa usually the first person badanaa waa qofka keliya that someone interacts ee qofka ula kulmo with when seeking assistance markuu uu rabo caawinaad. Visit the emergency maxaa la yidhahdaa waxaa loo jeedaa to go to the emergency ward inaad aado qaybta gargaarka degdega ah. To keep patients calm waxaa la yidhaahdaa to stay relaxed inaad dejisid xaalad and not getting too worried inaysan walwalka sii darin when things markii xaaladuhu ama shayuhu might be a bit hard ay adag tahay or scary ama absi ay jirto in bukaanka aad dejisid waay. It's my dream waxaa loo jeedaa something is a strong desire in wax aad u danaynaysid or wish that a person ama qofka uu hamiyo wants to achieve inuu gaaro or experience in their life ama noloshoodii ay la kulmaan ama ay khibrad ka qaataan. Maternity ward waxaa la yidhaahdaa a special part waa qayb ka mid ah in the hospital ee isbitaalka when mothers give birth ee hooyada ay ku dhasho to their babies anugoodii and received ay ka hesho postnatal care xilliga ee maamadu ay uurka sido. Infants
waxaa la yidhaahdaa typically from birth guud ahaan waa xilliga uu dhashto to 1 year of age ilaa hal sano oo kale ilaa hal sano da markuu gaaro. Shifts maxaa la yidhaahdaa shifts waa scheduled periods waa xilliyo nidaamsan of time ee waqti that an employee works ee shaqaaluhu u shaqeeyo. Socialize waxaa la yidhaahdaa to interact inuu la kulmo uu dhex galo and spend time waqti la qaato with people dadka. Deconstructed kala furfurid sentence. Last year I graduated from university. Meaning minaha waxaa loo jeedaa the speaker qofka hadlaya finished their studies wuxuu dhameeyey waxbarashadiisa at university ee jaamacadii and obtained a degree wuxuuna qaatay shahaadada koowaad ee jaamacadda. Sentence. I received a bachelor's of science in nursing and got hired for a job 3 months later. Meaning waxaa loo jeedaa after completing the bachelor's degree markuu dhameeyey shahaadadiisa koowaad ee jaamacadda in nursing ee kalkaalisinimada the student ardayga was offered wuxuu helay a job shaqo 3 months later 3 bil kadib. I work at the local hospital now. Meaning wuxuu la jeedaa the speaker qofka hadlaya currently has a job wuxuu ka shaqeeyaa shaqo at hospital that's nearby kaasoo u dhow or situated ama ku yaala in the local area meel deegaanka ah. My role is to register any patients who visit the emergency ward. Meaning waxaa loo jeedaa the speaker's responsibility mas-uuliyadda qofka hadlayo or job function hawsha shaqeed is waxay tahay to record inuu keediyo the information xogta iyo warbixinada of any patients bukaan kasta who come to the emergency ward ee yimaada qaybta gargaarka degdega ah. I do my best to keep patients calm until they see a doctor. Meaning waxaa loo jeedaa the speaker tries qofka hadlaya wuxuu isku dayayaa their hardest dadaalkooda ugu dambeeyay to ensure say u suurtageliyaan that patients remain relaxed bukaanka inuu xaaladiisa u dego and composed until they can see ilaa ay ka arkayaan a doctor dhakhtar for medical attention daweyn gaar ah. It's my dream to someday work in the maternity ward. Meaning waxaa loo jeedaa the speaker qofka hadlaya really wants wuxuu doonayaa to work inuu ka shaqeeyo in the maternity ward qaybta hooyada iyo dhallaanka at some point in the future mustaqbalka. I absolutely love working with infants. Meaning waxaa loo jeedaa the speaker qofka hadlaya really likes wuxuu aad u jecel yahay working with inuu la shaqeeyo infants dhallaanka. I work long shifts now so I don't have time to socialize as much as I used to before. Meaning waxaa loo jeedaa the speaker qofka hadlaya works long hours wuxuu shaqeeyaa dhowr saacadood at this hospitalku ka shaqeeyaa and so sadaraadeed they can't meet mala kulmi karaan with friends saaxiibadood and family iyo familygooda as much intii as they did before ay horay ula kulmi jireen. Thank you so much. Subscribe.